Guddida Naladis oo nala dhame ee gacanta ku haysa dhismaha garoonka labaad ee kubadda cagta ee magaalada Burco maanta warbaahinta kula hadlay hoteelka Baabuur Rayaan ayaa beeniyay hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Xasan Xoday. Hadalkaasi oo gudoomiyuhu ku sheegay in dawladda hoose ee degmada Burco ay hirgelisay dhismaha garoonka labaad ee Burco. Gudoomiyaha Guddida Naladis oo nala dhame Maxamuud Cabdi Awxirsi ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in dawladda hoose ee degmada Burco ay sheegato tacabkii dhalinyarada iyo bulshada gobolka Togdheer ay iskaga kaashadeen dhismaha garoonka labaad ee kubadda cagta ee magaalada Burco. Waxaan nahay Guddida Naladis oo nala dhame. Guddida Naladis oo nala dhame ku calaamasan ama ku suntan wax qabad. Waxaan isteedno dhalinyarada waxaan nahay 8 nin ee hirgeliyay dhismaha garoonka labaad ee Burco. Halku dhigayguna waa Naladis oo nala dhame. Mudooyinkii u dambeeyay su'aalihiina la weydiinayay ee social media haystay ee sida gaarkana laga soo weydiinayay qurbajoog iyo qoqojoogba waxa kamid ahaa in maamulka golaha deegaanka ee degmada Burco ay sheegtaan wax qabadkii danta guudaha. waxaan doonaynaa arintaa inaanu beenino oo aan nidhaahno waxa kama jiraan. waxay siiyeen maamulka golaha deegaanku waliba gaar ahaan warbixintana bixinayay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Maxamed Xasan Xoday inuu yiri garoon baan hirgelinay aad u baaxad weyn deerkiile taarabuunkiile shabagiile dhamaada kaasi oo ku jira sanad miisaaniyadkeegii. waxaan leenahay mudane madaxweyne iyo dhammaan bulshadii kale ee dhismaha danta guuda tan iyo maalintuu bilaabnaa ku taxnayd kana qayb qaadatay arintaa waxna kama jiraan waana ka tacsiyeeyeen. runtii waa niyad jab iyo gaab iyo moral jabin u soo hoyatay dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer. wax qabadka danta guudi tan iyo 1991 intii aan la soo noqonay xorriyadeena oo wax qabadkii ugu baaxadda weynaa ee iska wax u qabso lagu dhisay loona ururiyay xabad jaajuura. dhismaha danta guudi wuxuu noqday mid taariikhda galay 8 nin oo dhalinyaro ah la yimaadeen niyad san qalbi wanaagsan iyo juhud iyo dadaal joogto ah oo maalinlaha. intaas waxay dhashay in Burco oo 1972 garoonka Alabsi Stadium wax ka dambeeyay aan garoon loo dhisin ay garoon labaad ku yeelato. warbixinta waxa bixiyay oo loo dhiibay gudoomiye ku-xigeenka. gudoomiye ku-xigeenka waxaan leenahay gudoomiye 2 sano iyo sanaadii u socda garoonkaasi. 2 sano iyo sanaadida bil kasta waxaan bixinaa $150 oo washmaana ayaanu jeebkii ka guddiye ahaan 8 iska ururinaa ku siinaa ninka washmaaninta garoonka noo ilaalinay. wali ma istiri balse ma dhex timaadeenba mase ka war haysaan baahiyaadka iyo daruuriyaadka iyo waxyaabaha u baahiyay dhismaha garoonka. waxa ay andaraa in dhalinyaradii muddada 9 sano ay ugu fadhideen kuraasta mas'uuliyadda iyo xilkan ugu hayseen markii ay waxba u qaban weydeen markay iyagu wax qabsadeen inay iyaga wax qabadkooda sheegataan haba sheegataan baaba maahe macal bulshadii niyadda iyo diidilada iyo wanaaga u haysay inay iska wax u qabsadaan gobolkooda ku hormariso iyo dhalinyaradii taatu la mid ah rabtay aan niyadda iyo qalbigeeba ka doontaan ka jibisaan. waxaan u arkaynaa dhiirigelin, waxaan u arkaynaa dardargelin, waxaan u arkaynaa ka sii baday. mucaarid baa ka qayb qaatay, muxaafid baa ka qayb qaatay, bulsha ka qayb qaatay, qurbajoog baa ka qayb qaatay. meel sanad miisaaniyad lagu daray intaasoo bulsho kuma kolanteente. Maxamuud Cabdi Awxirsi gudoomiyaha Guddida Naladis oo nala dhame oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay mudane madaxweyne fariin khadan baa lagu siiyay waa ka raali galeynaa xaal baan ka bixinaa arinta haddaan nahay dhalinyaradii gobolka Togdheer iyo bulshadii gobolka Togdheer ku midowday dhismaha danta guuda ee garoonka labaad degmada Burco. qabadkaasina oo wax qabad ku suntan iska wax u qabso. Shucayb Xasan Dheere, Telefishinka Sahan.
magaalada Burco.